waa fanaan ka mid a fanaaniinta Soomaaliyeed waayahan dambe fankiisu fara kulul ayuu ku hayay masraxyada meel kasta uu tagana ama uu ka heesayna waxaad arkayseen iyadoo la soo buux dhaafiyey oo meel la kala istaaga la waayey fanaankan waxa googooyay jacayl waxayna yiraahdaan dadka yaqaanaa waa romantiga runta ah la sheego waa Cabdirasaaq Ismaaciil Cali oo loo garan og yahay Cabdirasaaq Anshax ku dhashay kuna soo barbaaray waxana ku bartay magaalada Jigjiga ee Soomaali galbeed Cabdirasaaq ayaanu ka waraysanay waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay jacaylkiisa iyo siday isku barteen waliba xaaskiisa waxaana xog ku haynaa markii u horeysay oo xaaska arkay ay indhaha qac isku siiyeen xaaskiisa in ay xubin walba meesheeda digtoona ku qaadatay oo hadli kari waayay gabadha sharafta iyo quruxda badan waa tuma waa Ayaan Maxamed Saalax oo xaaskiisa waraysi aanu la yeeranay Cabdirasaaq ayuu nooga warramayaa siday isku barteen iyo xaaladiisu sida ay tahay fankiisa iyo sugaantiisa iyo waliba soo jacaylku u googooyay qaybaha dambana riyo uu arkay ayuu ka hadlayaa iyo waliba wax arrin uu ka shalaayay arrimahaas iyo kuwa kale u diyaar garooba Cabdirasaaq sharaf iyo karaama ayay noo tahay inaad hor fadhiisatid waanu waraysigan kula yeelano aad baan ku soo dhaweynayaa si diiran waliba waan dhawahay Cabdi Xafid ogaatay inaad bal dhinacan fankii sugaanta aad u dhagan ugu shahay fankii sugaanta Cabdi haddaan kaaga sheekeeyo waxa la oran doonaa film buu soo daawaday Hindiya marka hadda ka hor waxaan sarkay hadda waa riyaan kaaga sheekeynaya anoo stage taagan markaa dhar madmadowna xidhan ma garatay oo heesay ma garanaya laakiin waan heesiyey dad badan way hor taagnaayeen waa gartay intaanoo stage taagan oo ku jira ayaa la dhirbaaxay waa ko yaa ku dhirbaaxay misra waxa weeye ka quraanka tag baa laygu yiri ma garatay anoo bila suulaan kacay markaa haloo yar ninkii stage ka taagnaa ilaa hurdadii waa ka salashay ha ay garatay hurdadii ma ka jirin nin weyn baan ahaayo dhar midna u xidhay stage taagan ma garatay hay oo xaragoonaya ha de tan baxday igu dhacdayna waxay soo noqoto weeyaan oo ka madrasad aad ay ma garatay marka fanku wax yaraanta iigu abuuran horta ahaa fanku qof wax ku abuuran ilaahay kana weeyay waxa dhacaysay inaan fanka ka soo bilaabay iskuulada iyo Ethiopia markay joogay maadaama music leeyahay ku jiray maadooyinka aan baranayno oo kalaasiyada oo kale yaa loo qaban jiray tartan agart marka horta halkaasaan ka soo bilaabay waan soo waday oo deetana markaan nin weyn noqday si qargaar ayaan kooxaha fankii soo dhex galay dowladda agart kadib waxa weeyaan waan ka soo hayaa halkaas waxaan soo aaday waxa weeye hooyigii fanka ee Hargeysa 2013 gart muddo badan kadib weeye markaan anshax baan ku beeray koox anshax baan leeyahay jireysay oo dowlad deegaanka ana kooxda magac iga soo raacay magaca anshax magaca anshax hadda ka hor baa waxa dhacay hadda ka hor baa waxa dhacay markaan magaalada aan Hargeysa imday ayaa waxaan salagnay Axmed Wali Ibrahim Maxamed Furna macallinkayga si fiican kadib wuxuu gartay wajigaygii uu gartay ma garatay deetana wariyaash xog igu yiri marka kooxdii anshax inaan ku jiray uu gartay wariyaash xog igu yeeray marka kadib magac dambe wala iguma yeerin
halkaasuu magacii ku baxay ku hana qaaday dee nimankan la socday iyo asxaabtan la socotoo dhan magacayga caadigaaba iyagu haystaanba ma garat waa saas deetana magac dambeba layguma yeedhin markaa magaca macalinkayga bixiyey masha allah waa gartay kolley hargeysaa timid oo fankaagii halkaasaa ka hana qaaday horead usii jirtay usii waday haatan ma is leedahay meeshaad soo gaartay baad waktigaa kusoo gaari lahayd markaad dib u eegtid sida soomaalidu fankaaga ay aad ugu xiisayso iyo heesahaaga hadda kahor miya markii hore ma is lahayd halkaanaad soo gaaraysaa yacni sidaan muddadan soomaalidu inay saansi kuu soo dhoweyso magacaan weyn oo hadda aad leedahay oo anshax caawa haddii la yidhahdo meelaan laga aqoonin uusan jirinin ma is leedahay deg deg bood u samayn kari lahayd markii hore miyo horta isma lihi maxaa dhahday cabdixaafid taas waxbaad qabateen isma lihi maadaana waxa weeyaan hadba heesta igu dambaysa waxaan moodaya inaan fanka soo galay waa gartay ma fahanta inaan saa ka bilaabo waxyaalo caqabadaha kala kulantay ma jiraan haba yaraatee haa way jiraan caqabado badan maxaa ka mid ah caqabadaha horta kulley nina waalidkii uma ogola oo waalidkii kugu dhiirigelinaya ma jiraan ma garatay marka dambe dalukuri waa in lasii kaa dee duceeye mooyaane ta kale markaad wixii ku dhex jirto fanku dee waxa weeye bulsho ama aan meeshin meel ku nool oon fan lahayn ma jiro horta qaladna waa laga aaminsan yahay ma garatay marka dad badan baa ka odhanaya waa waxa waa sidaa waa sidan ma garatay fankuna waxa weeye waa hidde qoom waliba ama nishi waliba meel ku nool uu leeyahay wuxuu reebaa dhaxalka suugaanta marka waxaa dhacaysa hadda wax samee baad is odhanaysaa oo matalan kilib baad samee is odhanaysaa kilibkii baa kaa soo galaya dowladda oo kale ka soo qaad dee waxaa jiraysa waxyaalaha qaarkood aan kuu suurta galaynin ilaa ay odee adduunyada kale dee dowladaha u hirgelinayaan ama ay u fulinayaan ama ay u fududeynayaan taasoo kale ayaa yaad caqabado badan kaa kulmaysaa waa gartay waxa kaloo jiro jeclaan wax kaa weydiiyey soomaalidu mar kastoon dad fara badan oo fanaaniina wareysanay kuwo kaloo fara badan oo noo balansan yihiin kuwii hore iyo kuwa dambaba ah qof kasta wuxuu ku leeyahay fanku ma aha meel dhaqaale laga sameeyo waa hawl badan yahay waa eedeyn badan yahay sidee loo bedeli karaa kaas oo maadaama wixii hobby idin yihiin oo aad hameyni maalin ku dhex jirtaan aad is leedahay dhaqaalana waa looga samayn karaa soomaalida iyo suugaanteedana waa lagu saacidi karaa niyo horta intii inbaa jirta xumaynaysa oo macnaha dee fikirka dhan dadka siinaysa oo marka kaa la arkay dee adiguna lamid baad noqonaysaa garta waxaan odhan lahaa inta haddii laga qabto horta waxa weeyaan way wanaagsanaan lahayd in wax laga sameeyo in waxa weeye dunida lala tartamo iyo in kaalin la geliyo oo waxa weeyaan uu noqdo wax fan muuqdo sharaf leh marka dee intii baan markaa la qaban karin berigii hore dee wuxuu lahaa kaalmo iyo wuxuu soo mari jiray haddii ilaahay ka dhigo shaandhooyin ma garatay laakiin iminka nin walba gurigiisu ka bilaabaa iyo jirkiisa marka mid la xakameyn karana maaha waa garan karaa waa gartay waxaan ogahay dhankaas iyo jacaylka inaad u googo'day oo kusoo xansaday waxaa la yidhi odaygu haddii ereyga romantic oo waayahan dambena haystay uu macno samaynayo ninkaas ayuu daris leeyahay cabdirasaaqa waxaan ogahay dimaashadii marna walaashay ayaan maxamed inaad tahay ooridaada waxaan kaloo la socdaa markii ugu horreysay qacdii hore aad wejigeeda aragtayba inay kaa raacday oo lagula soo rogi waayey bal arrintaa nooga waran arrintaas mid mucjisale ahayd waxaan ku wada hadalnay hadda ka hor anigoo ayagaaba joogo hees kusoo duubaya ayaan telefon baan qabtay soo dhacay
deetana taleefonkii gabadh baa igala hashay ugu tiri gobolkayga baa joogtaayo markaasaa yidhi ma gobolkaagii baa ahaa waad mahadsan deetan gabadhi dib maan sii eegin ma garatay markaa deetan sida islantaada kula hadlaysay ilan si fiican ma gobolka u joogi lahay maadan ogeyn ayada tahay dee ma ogeyn ma garatay waa garatay kadib waxaa dhacday inaan maalin maalmaha ka mid ah hargeysa aan iskaga soo baxnay meel gaaban gartay deetana halkaasaa layga raacay haddaba waxa weeyaan dhaqaaq iyo mid iska waayay xubin walba meesheeda istaagtaa tiri waa dhaqaaqi weydi mid wal meesheeday istaagtay sidii amar lagu siiyey ay markaa ma westi baan u socday ma waxa weeyaan jihadii ayaa fafashay networkigii waa garat wata halkaas ka bilaabnay halkaasaa layga raacay waa bartii lagaa raacay cabdixafidow meelahaasay u dhimatay waxaan ku yidhi ayadu dabcan way ogeyd inay horey kuula hadashay adugu maadan arkinin dabcan shaakaadin dhex martay goormo ayaad go'aansateen labadiinuba inay tahay maaragtay inaad tihiin labadii qof ilaahay isku qoritaanku iyo calafku waa gooni laakiin aad tidhaahdeen alleelahe qofkii aan nolosha la qaybsan lahaayeen qalbigu daydayaye ruuxduna ku nasan lahayd waa ayaan maxamed xilliga isla waqtigaasay ahayd kowdhe waxa weeye isbaraysi gaaban kadib waxaan ogaaday inay in badan waxa weeyaan aan wada hadalay mar iyo 2 iyo 3 toona ahayn ma garatay si wacan deetana anaa dib u qoomameeyey haddaba waqtigii waxa weeye aan wada hadalay waqtigii ceergaabi iyo teleefonkii wixii baa ka shalayday way ka sii horeysay xataa waxa weeye in badan baan wada hadalay hay horeysay waqtiga maxaad qabanaysa halkee ku maqnay calaf baa qornaa saaxiib waqti baa meel yaalay ay agartay marka waxaan kaasi soo dhaafiyay kan hadda joogow wax ka qabto go'aan baad qaadateen halkaas oo ku soco mid wuxuu ahaa xaaladiisa iyo xamaasadiisa oo la ogaa ummadda allah ha sharfay in badan bay noo duceeyeen masha allah marwaduna allah ha sharfay in badan bay soo dadaashay jacalkaas wuxuu noqday mid haddii ilaahay ka dhigo guulaystay aad baan u salaamayaa inta ka qayb qaadatay iyo ehelada iyo dhammaan faamiliga iyo asxaabta iyo waxa way taageerayaasheeda aroos waayahan aan la qabanno waa dhigateenoo fideoyaashii baan daawanayoo hadda lagama sheekeyn karo waxaa ka dhigteen iyo arooskaasi mid isagu iswaday baa mid la waday ma ahayn ilaahay baad iska watayna xag ilaahay ka socdo waxaan arkay dad badan oo bulshada sumcad ku dhexle oo idin garab taagnaayo dhinac walbaba maaragtay idinka garab taagnaa haddii aan lahayd fankii sugaantii iyo haddii aan lahayd martidii sharafta lahayd ehel iyo qaraabo cid u kala hadhayba may jirin qof waliba inay ku waajib tahay oo waxa weeyaan iski ayuu isku xilqaamayay aad iyo aad maasha allah waxay ka turjumaysaa dadka aad tihiin iyo adiga iyo dimaashaday marna walaashay ayaan dadka aad tihiin bay ka turjumaysaa iyo sida laydin jecel yahay mararka qaarkood waxaan aragnaa sawirro aad labadiinu weji ka weji isku dhowdihiin oo aad isdaawanaysaan oo laga akhrisanayo bayjaj fara badan oo jacaylkiina ka mid ah sawiradaas markaa la qaadayo ma ugu talagashaan saas in loo qaado mise si waxay u dhacaan qaaritaan caadi ah
marka alla markay indhaha isqabtaanba shaashadda waan ka baxnaa jacaylkaa dhinac idiin tuura garatay garatay si wacan marka godolkaa keenaya garatay saaxiib waxa weeye markay dadku isjecel yihiin waxa weeye waa laga akhrisanaya xaqiiqatan waana wax lagu farxo laba qof oo dhalinyaro ah oo isjecel oo jacaylkooda iyo wanaagooda ku faanaya waa wax aad iyo aad loogu farxo waxaan idin rajaynaynaa ubad khayr qaba iyo nabad iyo caano iyo wiil iyo caana la oran jiray haddii aanu halkaas hakad ka gelino halkaa waxaa jira heeso fara badanood qaaday haddaan ku dhaho labada heesood ugu jeceshahay bal noo sheeg ilaan farihii bay ka bateen oo lama soo koobi karo iyo sababta cabdo heestaan ugu jecelahay heestaan qaado heestaan ugu jecel miya soo dhowow ha waa heesku la yidhaha nasri waa garta sababtuna waa marxalad mar walba taagan oo second by second taagan weyn oo dhab ah riiliya dadkaan la soconin xoogaa yar oo macnee maxaa tiri xoogaa yara macnee noo qiixo ujeeddada waxaa ka wadi macnaa waxa weye waxay ka hadlaysaa farqiga u dhexeeya waxa weye waxhaynta iyo waxhayn la-aanta duruufaha adduunka absolutely iyo nimcada lagu kibrayo iyo waxa weye sida dhibta yar ee ilaahay kana ku saacidi karo kana uu dhulka ku dhigi karo ayay ka turjumaysaa waxay ka turjumaysaa la helaa la waayaa ma garatay waayo waxay ka aragnimo turjumaysaa sadaqada oo kale ayay ka turjumaysaa waxay ka turjumaysaa digashada iyo kibirka aad iyo aad ma garatay marka si ilaahay wacan wada kibira heestaas waa wacyigelin waxa weeyaan ka turjumaysa waxa weeyaan kan dhargay iyo kan aan wax haynin ma garatay waa gartay si wacan dabcan cashar fara badan baa ku jira heestaas dadka aan arkinin soo eega waxa weeye wax badan inaad ka faa'iidaysaan waa hubaa waxaa jira hees waxa kale weeyaan oo dhinacyo badan bay heesta taabanaysaa cadow keliya intaa un maaha waxay ka turjumaysaa waxa weeyaan marwada wanaagsan iyo marwada xun ma garatay wasaad ha ma garatay waxay ka erayadeedii maxaa ka turjumaysaa xasuustaa samirka iyo dulqaadka ya erayadeedii maxaa ka xasuustaa erayadeedii ku luuqaday adoo mahadsan nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waanay ka xasuustaa waan uga dartaa marka heestu wasaas waxay ka hadlaysaa walaal waxa weeye yani ilaahay buu leeyahay adiga ay siiyey macnaha marwo sidaas iyo sidaas oo wanaagsan ma garatay adiga kugu mahadsaa aad iyo aad marka adduunkii waxa weeye ilaahay wuu ugu mahadnaqaya dee marwadii uu siiyey macnaha waxayna iyada igu filan buu leeyahay ma garatay iyo adduun nimcoo dhan halkaan taada baa leedahay ha ma aad garatay iyo aad aad iyo aakhiru ilaahay weydiisanayaa jannada iyo barwaaqada aad ma garatay waxaa kaloo jirta hees kale oo la yidhaahda ducaqabo oo ayada laftigeedu tilmaamayso qofka dumarka ee wanaagsan iyo tilmaamaha ay leedahay iyo waxyaalaha looga digo waxaan rabaa inaan sir yar kula wadaago heestaas ducaqabo oo dadkaad aragtay ee faraha badan ay daawadeen waxaa laga yaabaa haaf dadkaa ka mid a inuu aniga keligay ahaa 10 jeer baan daawaday saaxiib waa ku celceshtay way igu socotay baa la yidhahdaa lagama sheekeyn karo heestaas laftigeedu fartiin fara badan bay wadatay oo ninkan halyeyga gabar markuu helo wanaagsan ay garab taagan inuu maaragtay ragga mid ka tilmaaman uu noqdo ayada laftigeeda waana fara badan iyo tusaale iyo hoga tusaaleyn bay usoo jeedisay maxaad ka xasuustaa miraheedii maxayse ku timid heestaas waxay ku timiday awaankaas sameeyey xasan saleeban oo humaaga iyo wax walba isagaa lahaa sawirkana isagaa lahaa abuurkana isagaa lahaa ereyada insha allah marka waxaan ka qeexi karaa uun ujeedada heesta ku socotay inay ahayd horta haweenka sax
haweenku inay wax walba oo wanaagsan iyagu tusaale u yihiin oo matalan wariyaha iyo fanaanka iyo madaxweynaha iyo bayloodka iyo waxa weeye injineerka iyo dhakhtarka inay iyagu dhalaan ayadaa loo wada noqonaya fiid walbana doqonka iyo geesigana iyagu dhalaan waxa weeye doqonka ma fahantay waxay ka turjumaysaa ninkii hele markaa waxa weeye gabadh wanaagsan inuu helay taladii inuu helay caqligii inuu helay waxa weeye samirkii inuu helay ma garatay aydiin wax walba lala garab taagan yahay oo xataa haddii uu dulqaad yaraa macnaha uu noqonayo duqii nabadda dumarka hore waxa weeyaan madax yareewna hadalka qaadi jirin inuu bulshadan isagu u talinayo duqii nabadda noqonayo ayay ka turjumaysaa hadduu helo gabadh wanaagsan erayadeedii maxaad ka xasuustaa ku luuqadayn kartaa adoo mahadsan waxaan ka xasuustaa ilayn darajada haweenku ilayn waa wada dulqaadka xishoodku miduu dabaalay ilayn ruux kuma dambaabo ilayn dabadeed macaayo ilayn ilayn dandansan maayo haddayse habeen dawaafka dadku laday suuqa meerto intay gurigooda diido hadday kolba laba ku daahdo intaas horta eriyada ka xasanta kusoo koobayo heestaasi waxay noqotay mid tusaale iyo waxa weeye tala iyo wacyigelin intaba wadata lagama sheekeyn karo waxaa kaloo jirta hees kale oo kise dhaba la yiraahdo oo abwaan sakariye kobciye uu sameeyey ninka faraha looga gubtay ayada laftigeedu maxay ka turjumaysa qisada dhabtaasu maxay ahayd heestaasi haddii aan tusaalahayga kusoo koobo heestaas jacaylkaygun bahay gart nama dhaafsanayn wax ku weydiinaye ku saca heestaas namay dhaafsanayn anaga marka abwaanku ma asagaa idinla jeclaaday mise idinkaa ka dalbaday inuu maskaxda idiin shiilo horey baan kugu sheegay cabdikhaaliqow qof waliba bartuu joogo isku xilqaamayay waa gartay isxilqaankii kamid ahayd abwaanku garashadiisii ku timid aad iyo aad oo ambalyeynana waana talaabaynaa waxa weeye inuu isxilqaamay oo saaxiibkiisii iyo dumaashidii uu cimaamaday oo ku sharfay waxa weeye waa wax weyn meeshaad ka joogtaan bay qiixaysaa gabagabadii cabdirasaaqow waayo arag baa tahay in badan baad fanka hadda kusoo jirtay weli dhallinyaraa tahay waqti badan baa ku haray oo dadku aad bay kuu jecelyiin haddii caawa la yidhaahdo masraxa waxa saaran anshax waxa weeye meel cag iyo jaalla dhiga la heli maayo maxaad jeceshahay inaad qabataan aad samaysid dhowaan dhowrka sanoo soo socda maxaa kugu qorshaysan baad isla goormaadsi ingiriiska imaanaysaa niyo waan idin imaanaya kow dhaha dhowr jeer waxa weeyaan waan usoo xamaan gurtayoo deetana wax karooro la yidhahdiyo bahalkii baa aad iyo aad laakiin insha allah sanadkan de iyo sanadadan waan rajaynayaa inaan idin imaano keligeen fanaaniin badan soo gaxaysa jirta group idinkoo ah badantihiina maasha allah marka waxqabadadu way fara badan yihiin intii waan ka ballaaran doonaa intaan ahaan jirto waan ka ballaaran doonaa way ka ballaaran doonaa waxqabadada insha allah haddii ilaahay ka dhigo sanadada soo socda haddii fantahay dhinac kale tahay waad ballaaranaysaan waxaan ogahay inaad carabsiyo joogteen oo abwaanka hadda siyaasiga wuxuu siibtay fanka heesihiisa soomaalidu ay si fiican u taqaano xasan dhuxulaab salaax inaad kambeynkiisa idinkoo gruuba aad ku jirteen meel kastana odayga la isagaga soo baxay oo dadku ay leeyihiin waa ku caleemo saarnay arrintaas bal maxaad ka leedahay inadeero arrintaasi waa mid la farxad gelisay oo waxa weeye
annagana tusaale noo ah waana markii ugu horreysay ee intuu naga soo dhex baxo haddii ilaahay ka dhigo hoggaan siyaasadeed uu macnaha hiigsi baarlamanka inaan geli karno xukuumadda wax la qaybsan karno una tusay waxa weeye waana mid aan ku dhiiri gelinayno ku garab taaganahay had iyo jeerba aad iyo aad mid aan ugu olole keliya maaha hiil iyo garabo waa mid aan ku garab taaganahay taas dabcan waxa weeye uu idinka mudan yahay meeshuu idinka joogaya tusaale dad kaloo fanaaniin fara badan baan la hadlay iyo kuwa aanu waraysi ka qaadi doono intaas aa sheegaysid in ka badan bay ka sheegayeen waxaan jeclahay inaan soo gabagabayno adaan ku siinayaa kelimada ugu dambaysa taageerayaashaada dadka ku jecel ee fankaaga aadka ugu taxan adiga iyo saaxiibada idin taageero gaar ahaan adiga ku taageero hadda ku waraysanayno maxaad ku oran lahayd horta qof walba meeshu joogu ku sharfan yahay waan ku salaamaya marka xigna waxaan sheegayaa inaan soo socdo waxna soo wado fasaas saxarlaya fududaan garta marka wax badan baan haddii ilaahay ka dhigo ka qaadi doonaa weegigan soo socda wax qabadkeeda ku jira haddii ilaahay ka dhigo iyaguna waa bulshadeedii way sugayaan waan ogahay fasaas marka waxaan leeyahay waan ka farxi doonaa insha allah adigana aad ba saaxiib ku salaamaya cabdi xaafid allah ku karaameeyo kulligan aamiin وحقاق صاحب شرف يكرام أي نوع هذين أنا كل فريسنا كل شاهينو جعل كارنا عكو توري الحوار يرى كارشة كيسنا يو فنكاي سوينت هذا فرحات فربضان بكام وغطوا حين الدليل وتاي قبل أولا شيء أنا لو كل قريب سنة يسا تاي جوب سلام شرفت بني جالسين يسا وخاص الله كراميو adigana ku mahad celinaa iyo dhammaan dadka wanaagga kaala shaqeeya intaas ayaanu jecelahay daawada inaanu kusoo gabagabayno waraysiga aanu la yeelanaynay cabdirasaaq ismaaciil cali oo loo garan og yahay anshax meeshuu magacu kasoo raacana waa idiin sheegay abwaan xasan dhuxulaab salaaxna waanu xun u rajeynaynaa horumar iyo guul dhalinyaradu inay siyaasadda gasho aad iyo aad bay u wanaagsan tahay ay guulaystaan oo jiilba jiil kale uu bedelo waa xilligii dhalinyarada weeye maasha allah soo dhow cabdisaaq siyaasadda iyo barnaamijyadan siyaasadda iyo fanka aad bay anagu nagu kala soocan yihiin laakiin qofkii xamile oo raba inuu riyadiisa ka dhabeeyo in la taageero oo isbeddel la helo waa wax wanaagsan weeyaan marka abwaanka guul baan u rajaynaynaa waxaanu kaloo aragnay kulligiin waxaa idiin wada saaran fanaaniintiina badankiina aan la xiriiray astaanteennu waa xidig baa idiin wada saaran oo asaga uu ka dambeeyey marka xigigtaad guulaysta dhammaanteenba saaxib dhammaanteenba mayowan garab istaagina abwaanka meelan ka gaarina ma jirta abwaanka saas weeyaan saaxiib yar waraysigan waxaa idiin soo saaray weliye cabdifataax cali shiruuc anigoo cabdixafiida idinla socodsiinayay xidigaha ayaanu ku waraysanayna cabdirasaaq idinka ayaa daawanaya sharaf iyo karaamo leh ra'yigiina iyo fikradihiina halkan hoose noogu qiixa nala soo wadaaga haddii ilaa yidhaahdo intaanu kaloo kale dib ugu kulmi doono waxaanu idiin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo iyo xidig ka mid a xidigaha soomaaliyeed aanu dhowaan idiin soo qabanno liisku waa dheer yahay laakiin maalinba mid baa marti noo ah waan uga mahad celinaynaa kulligood waa mahadsantihin